halkani waa saylada cobasha ee degmada Dhadhamane waa saylad kamid ah sayladaha ugu waaweyn guud ahaanba deegaanka waxaana iskugu yimaada maalinta loo yaqaan gabayaha ganacsatada afaha gobolada deegaanka iskaga kala timid iyo wadamada dariska kaana soo doonta xoolaha nool iyo koox bangi la'aanta ka jirta ay dadka lacagta ku kaliftay inay ku qaataan degta xilli uu dalka ku jiro xaalad degdeg ah oo aan loo ogolayn lacag in gacanta lagu qaato tuuladani cobasha ayaa waxay tahay magaalo ganacsi waxaana maalintii Arbacada oo loo yaqaan maalinta gabayaha iskugu yimaado xoolo ka kooban 3 meesi kuwaas oo laga soo kala iib keeno meel fogfog haddaba dadweynaha xoolaha ka ganacsada iyo kuwa soo iib keena ayaa cabasho ka muujiyay bangi la'aanta ka jirta oo sababi karta in lacagahaasi laga dhaco sida ay haddaba sheegayaan iyadoo aynan lahayn bangi iyo shirkad microfinance ama shirkadda hay'adaha lacagaha yaryar oo aanan ka furan xarun goobtaasi waa lacag 90 kuna waka maxaad ku iibinaysay xoolo safar keensaday baan ku iibinay waka waxaan qoorta ugu sideynana waa bangi la'aan waxaan doonaynaa inaad bangi nolol sameeyo dawladdu boorso lacag wata bankina ma jiro rafaad baan ka soo saaray xagaaba haddana suuqa lagu qabsadaaba oo lacagtan xageed ku wada oo maxaa tahay baa lagu waran oo wiil baa daraad la qabsaday xagaagu baabili ka soo socday isagoo bankiga lacagta ka soo saarto suuqa socda yaa la qabtay suuqa lagu qabtay marka xagaas laga hayo xafiiska la geeyay muxuu soo socday xoolo halkan ka iibsanayay dhinaca kale gudoomiyaha degmada Dhadhamane mudane Musadad Sheekh Cabdiqani ayaa dhankiisa codsi u diray bangiga ganacsiga Itoobiya iyo shirkadda microfinance inay xarun ganacsi ay ka furtaan laan ama bangi saylada cobasha saddex saami ee xoolaha ah waa lagu gadaa oo waxay maalinta Arbacada ay saylada suquraha ay shaqeysaa saylada Dhadhamane iyaduna waxa lagu qadaa ariga qura lagu iibiyaa oo lo iyo geeriyada lagu iibiyo in si ballaadhan hadii la yiraahdo warjin doona saylada iyaduna college iyaduna saddex saami ee xoolaha ayaa iyaduna lagu iibiyaa degmada Baabili markaan saa leeyahay waxay leedahay haddana jidka waxa u dhaxaysa haddana jidkan weyn ee laamida hadda maraya ee mashaariicda heer federaal ay wadaan ka soo baxa Baabili to email laakiin dhibaatada ka jirta waxa weeye saylada cobasha iyada waa banki la'aan bankiga dhibaatada badan ka jirto degmada Baabili dadka ganacsatada meel kasta Addis Ababa ka imanaya Hargeysa ka imanaya waxayna banki ay lacag dhigtaan haba yarata ma jirto nin kasta waxa arkaysaa in boorsad weyn uu riran yahay oo lacagtii uu wato marka taasna waxa la risk fara badan bay leedahay in waxaan codsan lahayn in bankina loo sameeyadana oo banki ama microfinance haato ama banki haato in bulshadaas waxay ku adeegsan lahayn loo sameeyo waan jeclaan lahayn ugu dambeyntiina qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa dhankooda ka hadlay baahida saylada xoolaha tuulada cobasha oo qabto bangi xilli dalku ku jiro xaalad degdeg ah oo lacagaha si degdeg lagu wato ilna la qabto khatar ugu jira dadka xoolaha sayladaasi ka soo doonanaya waa kan uga sahal Arab Yusuf oo ka hadlaya baahiyaha bangi ee ay tuuladaasi u qabto wuxuu ilaahay ugu og yahay oo arkay geel ka yimid har geel ma aha Mandera geel laga keenay Kenya Sooma oo lagu iibinayo geel laga keenay goday oo lagu iibinayo Mandera geeli jooga hadii la kaxeeyo de Soomaaliya uga dhow hadii xaga loo kaxeeyana Bombasa ba dekad leh wad fahanso kuwa goday laga keenayo Boosasa u dhow Hargeysa u dhow Sooma waa iraada Ilaahay in xoolahaas halka yimaadaan halkaana lagu iibiyo kuna nabad galaan waxaad arkaysaa 45 milyan oo jawaan lagu soo qaado oo halka lala tago xoolo lagu iibsado wixii ka soo hadhay iyadoon cidi wax boobin cidi wax dhicin haddana tun lagu soo hooyo awaaj bay soo saartay awaajkaasi kow bulshadu saameynayo waa bulshadaas laba wuxuu saameynayaa waa xukuumadii waayo dhaqaalihi halka ka soo galayay waa dakhligii deegaanka u soo xiroonayay inay culays saarto in meesha laga hirgeliyo bangi